السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولكن عبد الناصر طيب oo idin leh soo dhawaada. Talent ayaad leedahay ma samaysid sida waa halhayska reer TikTok waxay kala caan ku yihiin idhahda yacni iyagu waxba ma soo saaraan balse hadallo horey loo yiri bay istul saaraan intooda badan marka uu shay ka badbata dhagahaaga waxaad xaq u leedahay inaad wax un ka ogaato si aad wax uga ogaatana waa inaad malafeedaada furtaa oo aad baadho ilaa aad ka helayso qofka hindisay maskaxda muuqaalkeena kagama hadlayno TikTok iyo wuxuu yahay ee waxaan kaga hadlaynaa maskaxdii soo hindistay aaladan dhalinyarada haligtay Shan Yamin waa milkiilaha aaladda TikTok wuxuu dhashay 1983 kuna dhashay dalka China markaan arkay magaca shacda ka bilaabanaya ayaan dareemay inuu yahay reer Shaanshun wuxuu bartay software engineering kana bartay jaamacad ku taala Beijing oo la yiraahdo Nankai University wuxuu maalmihiisii kolledka baran jiray sida loo dhiso website-ka iyo troubleshoot technical problems isagoo bixinayay lacag dheeriya 2006 markuu dhameeyay jaamacadiisii wuxuu bilaabay shaqo balse kuma nagaanin 2008 wuxuu ardaynimo isku qoray shirkadda software balse kuma sii nagaanin uu ka baxay sharciyada jaamacadda ku adkaaday awgeed war fududeyd badana oo socod badana waa fududeyd ka haysta reer TikTok 2009 wuxuu aasaasay kambanigiisii u horeeyay oo loo yaqaanay 99funk.com 3 sano ka bacdina wuxuu ka tagay shaqadiisii wuxuuna ku biiray kambani la yiraahdo ByteDance oo ku yaala Beijing kambaniga ByteDance 2016 wuxuu soo saaray muuqaalo hordhac u ah aaladda TikTok 2017 waxaaba banaanka yimi aaladda TikTok waxaana adeegsatay 500 oo milyan oo qof oo ku kala nool daafaha caalamka Shang waxa sidoo kale dabka u saarnaa barnaamijyo kale oo uu rabay inuu soo geliyo hawada sida Figo Video, Topaz Video waxa samirow ku noqotay isagoo aan hana qaadin in TikTok laga mamnuucay dalalka qaar sida Indonesia iyo India TikTok wuxuu ka caansan yahay Facebook, Instagram iyo YouTube hase ahaatee ma lahan wax dhaqaale soo saar ah qaybta xigta muuqaalka waxaan kaga hadli doonaa dhibaatooyinka uu leeyahay TikTok iyo waxyaalaha looga mamnuucay dalalka qaar si aad u hesho qaybta xigta fadlan channelka like iyo subscribe saaro qaybta commentigana waxaad noogu xustaa dhibaatooyinka uu ku hayo TikTok bulshadeena Soomaaliyeed mahadsanid